munaasabad lagu xusayay maalinta nabadda adduunka oo ay soo qabanqaabisay hay-adda SWSO oo kaashanaysa machadka LPI ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Jubbaland. halkudhega sanadkan waa jooji haybsooca horumari nabadda. munaasabadda oo ahayd mid heerkeedu sarreeyo ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Jubbaland, mas'uuliyiin matalayay hay-adaha maxalliga ah ee ka howlgala deegaanka iyo ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan. innagu dad islaam aan nahay, nabaddu qiimo weyn bay inoo leedahay. in nabadda laga shaqeeyona waa wax aad u qiimo badan. Soomaaliya waxa la yiraahdaa waxay lahayd dawlad xoog leh, warshado, horumar, wax badan oo wanaaga ka jiray. wixii wanaagahayo Soomaaliya ka jiray waxa lagu waayay waa nabad la'aan weeye. dadkeenu wuxuu u qaxay oo adduunka ugu yaacsan yahay oo qaarkood dhibaato badan iyo burbur iyo dhibaato ay badaha ugu baaba'een, qaar waxbarasho ku waayeen, qaar caafimaadkooda ku waayeen, qaar jirkooda qaar kamida ku waayeen. waa nabad la'aan weeye. marka inagu waxaan nahay dad nabad la'aanta dhibta ay leedahay dad soo arkay baan nahay. marka nabaddu macna gaar ah inaga Soomaali inoo sameynaysa, waayo waxaan ognahay nabad la'aantu dhadhankeedaan garanaynaa. waxaan u mahadcelinayaa hay'adda SWSO ee kaashanayso LPI. sidaas darteed waxaan leeyahay nabadda hawarto mar walbaba aan ka shaqeyno, dhalinyarada gaar ahaan inaan nabadda ka shaqeyno mar walbaba aan u istaagno, maadaama aad tihiin midi laba af ah, dhan xumaan iyo dhan samaan baa laydin kaashan karo. mar walbaba inaan ku shaqeyno wadada toosan ee dhanka ee nabadda ah. nabadda Kismaayo meelay ka timid waa laga soo wada shaqeeyo odayaasha dhaqanka, ururada bulshada, ciidanka, waa laga wada shaqeeyo. meel bay hadda joogtaa in la wada ilaaliyo oo in la kordhiyo meanay hoos u dhicin naaqusi waa laga maarmaan. marka waxaan ku baaqaynaa maanta baaqayga aan direynaa yahay nabad. marka la rabo inaan si fiican looga hadlo waxaan u baahannahay nabad positive oo togan, nabad togan baan u baahannahay. waxaan nahay dadka nabadda jecel, haweenkana waa dadka u nugul. haddii nabad la waayo dadka u nugul baan nahay. haddaan nahay gabdhaha haweenka reer Jubbaland gaar ahaan degmada Kismaayo waxaan ka shaqeynaa mar kastaba nabadda inaan dhex istaagnaan rabnaa. nabad inaan helno aan ku sii noolaano annagii ilmaheennii iyo inta naga dambaysa nabad ku sii noolaato. waxaan jecelnahay inaan noqono dadkii nabadda saldhig u ahaa. waxaan nahay inaan ilaashano nabaddan yar ee hadda biriqday ee helnay ee quruxda loo fadhiyo, inaan noqono dadkii sii ilaalin lahaa oo gacanta ku sii hayn lahaa, inaan noqon dadkii burburin lahaa ee dhibaateyn lahaa inaan noqonin baan rabnaa. wasiirka wasaaradda haweenka, arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Marwa Cadar iyo labada xildhibaan ee kala ah Dr. Shire iyo Faadumo Macallin Cabdikariim ayaa dhankooda bogaadiyay nabad ku wada noolaanshiyaha ummadda Jubbaland. maadaama aan ka soo shaqeynayay barnaamijkan muddo 6 sano ah, aniga ka cadar ahaan aan ogahay heerka ay soo martay. waxaan rabaa hay'adda SWSO maadaama ay ka soo dhaxbaxay wasiirna aan noqday, maantana aniga aan ugu jiro golaha wasiirada SWSO waxay u leedahay abaalmarin. waxaan guddoonsiinayaa shahaado sharaf oo u talagalay SWSO. ayaan madaxa hay'adda SWSO aan rabaa inaan guddoonsiiyo. xariimo soo dhawow, idinkana ila farxa. dhammaantiin waa inaan u istaagnaa xariimo oo shahaado guddoonsiinayna. dadkana ay reer Jubbaland qaasatan ururka haweenka iyo odayaasha dhaqanka waan amaanayaa dadka reer Jubbaland say maalin walba ay nabadda ugu taagan yihiin, isku xirka bulshada, isdhaxgalka bulshada iyo garab istaaga dawladda. waan ku amaaninta arrintaas waan ku mahadcelinayaa. waxaan ilaahay ka rajaynayaa sanadkaas sanadkiisa kale 21 September xafladan inay ka dhacdo Xalimo Gadan ay nooga qabato
magaalo madaxda dowladda Jubbaland ee Bu'aale inay qabatina baa ilaahay ka bariyo waxaan u maleynaa Soomaali berigii hore istirnaceebka dhaqankeedu uu ku xoog badnaa laakiin sanadadii dambe xogaa waa ka fiicannahay istirnaceebka saa u maleynayo takoorkii hadda ma jiro badnaa caqabadihii reer hebel laandheero waa reer hebel waay ma jirto waxaan leenahay marka hal la xoojiyo si uu si dabar go'o istirnaceebka oo dhinacyo kasta gali kara ma ahan in kufaanida qabiilka kali uu galaayo ma aha laakiin dhinacyo badan uu gali kara dhinac kasta uu ku saleysmi karo aan ka iska hor istaagno maalinta nabadda adduunka ayaa waxaa ansixiyay golaha guud ee qaramada midoobay sanadku markuu ahaa 1981 waqtigaas wixii ka dambeeyayna dadka adduunka waxay go'aansadeen in ay u dabaaldegaan 21 Sebtembar sanad kasta. Cabdullaahi Xuseen Kilas, telefishinka caalamiga ah ee Ariel Kismaayo.